السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج عصب وان ugu magac darnay dhacdo qaybtiisa koobaad. sanado badan uu farshaxanka baranayay kadib ayuu sawiray farshaxan cajiib ah waxa uuna dhigay goob fagaara ah waxa uuna ku dul qoray fadlan haddii ay wax qalad ah kaaga muuqdaan sawirkan iyo calaamaday si aan u saxo waxa uuna ag dhigay qalin maalintii dambe ayuu ku laabtay meeshii waxa uuna ugu tagay sawirkii oo wada calaamadaysan maalinkaas ayuu ka niyad jabay farshaxanka waxa uuna u tagay macalinkiisii oo uu sheegay in uu iska dhaafayo farshaxanka maadaama ay calaamadaha dadku u sheegeen in farshaxankiisu qaldan yahay macallinkii ayaa u sheegay in uu yahay farshaxaniiste khatar ah balse waxa uu kula taliyay in uu isla sawirkii dhigo meesha balse uu bedelo ereyada uu ku dul qoray waxa uuna u soo jeediyay inuu ku dul qoro fadlan haddii ay wax qalad ah kaaga muuqdaan icaawi oo iga sax qaladka kana dhig sida ay kula tahay kadib sidii ayuu sameeyay balse nasiib wanaag galabtii dambe ayuu u tagay farshaxankiisii oo sidii ah oo aan waxba lagu dul qorin macallinkii ayuu ku soo laabtay waxa uuna u sheegay in farshaxankiisii aan waxba laga bedelin kadib macallinkii ayaa ku yiri xikmad cajiib ah dadka badankood waxa ay jecel yihiin in ay ceeb u raadiyaan wax kasta oo ay arkaan balse waxa ay dhaliishoodu dhammaanaysaa markii aad ka codsatay in ay xal u keenaan ceebta ay sheegayaan waxaan rajaynayaa in aad ka faa'iideen inta aan muuqaal kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh